qof kasta oo xiriir leh wuxuu jecel yahay inuu khaas u ahaado qofka uu jecel yahay. qofkaaga inaad sidaas dareensiisana waa wadada ugu fiican ee aad xiriirkaaga ku horumarin karto. jacaylkaaga inaad ka dhoola cadaysiiso wax adag ma ahan. muhiimadu kaliya waa inaad taqaanaa waxa aad ku dhihi lahayd iyo waqtiga saxda ah ee aad dhihi lahayd. soo marka soo hel wadooyin aad ku dareensiin karto inuu special ku yahay adigoon hadiyado qaali ah isku dhibayn. fariimo qurux badan oo aad u dirto kuwaasoo maalintiisa ama maalinteeda u qurxin kara waa wax ka caawin kara inaad jacaylkaaga farxad geliso. kuwani waa fariimo qurux badan oo aad jacaylkaaga u diri karto. 1. waxaan jeclaan lahaa inaan kula joogo ama aad adiga ila joogto. 2. waan ku jeclahay in ka badan inta aad weligaaga ogaan doonto. 3. ma qiyaasi karo noloshayda adiga la'aantaada sida ay ahaan lahayd. 4. waa caadi mararka qaar waan isku xanaaqnaa balse waxaan rabaa marnaba inaanan kala tegin. 5. marka aad ii dhoola cadayso dhammaan dhibaatooyinkayga way idlaadaan. 6. noloshayda waa mid qurxoon, jacaylka aan dareemana waa mid macaan, maalin kastana farxad ayaan helaa, intaasoo dhanna waa adiga dartaada. 7. waan u samayn karaa wax kasta babe si aan u arko dhoola cadayntaada qurxoon. 8. waxaad ii tahay sida balwad aan marnaba iska dayn karin. 9. waxaan kaliya rabay inaan ku ogeysiiyo hadda inaan adiga kaa fikirayay. 10. waxaan dareemaa amni iyo nabadgelyo marka aan agtaada joogo. 11. waxaad tahay qof la jeclaysto, gabar kastana way jeclaan lahayd inay ku hesho laakiin kuma helayaan waayo aniga kana sii badan ayaga. 12. adiga inaan ku jeclaaday hadday khalad tahay, marnaba ma rabo inaan sax ahaado. 13. dunidayda ayaad ii qurxisaa. 14. maan garanayn jacaylka dhabta ah wuxuu yahay ilaa aan adiga kaala kulmay. 15. waan u siisan lahaa wax kasta si aan adiga kuula jiro. 16. maalintan kula kulmay waa maalintii ugu fiicneed noloshayda. waxaan rajaynayaa sida aan isku jecelnahay inaan weligeena isku jeclaan doono. 17. adiga aniga ku leh hadda mar kasta iyo intay nolol jirtaba. 18. ma jiro qof sida aad i dareensiiyey mana jiri doono. 19. waxaa tahay qoftayda anigoo kaliya ku leh, cid kale oo aan rabana ma jirto. 20. haddii aan noloshayda dib u soo bilaaban lahaa, halka shay ee aan bedeli lahaa wuxuu noqon lahaa adiga inaan sida ugu dhaqsiyaha badan kuu barto. 21. waxaad tahay wiil hadal macaan, waxaan rajaynayaa inaadan gabdhahoo dhan sidaasoo kale ula hadli doonin. 22. in badan oo farxad ayaad noloshayda ku keentaa, waxaan aaminsanahay qof iga nasiib badan inuusan jirin. 23. waxaan rabi lahaa inaad laabtaada i geliso oo aadanna marna iga foqin. 24. dhammaan inta lacag iyo dahab ee dunida taala ma goyn karaan jacaylka aan aniga kuu qabo. 25. aniga iyo adiga waan isku qorannahay, noloshan iyo tan dambeba waxaan ku ducaystaa inaan isla jirno. intaas ayaan kusoo koobnay saaxiibayaal. I hope inaad ka hesheen muuqaalka. haddii aad ka heshay like muuqaalka wax badan ayay ii tahay taas. til muuqaalkeena xiga insha Allah. nabadgelyo.